Afhayeenno ayaa ka soo baxay heshiis dhinaca nuclear-ka oo Mareykanka iyo Sacuudigu ay qalinka ku duugeen. Maamulka madaxweyne Trump ayaa si rasmi ah u ansixiyay heshiis taariikhi ah oo 30 sano ah kaasi oo Sacuudigu u ogolaanayo inuu yeesho barnaamij nuclear ah oo madani ah. Heshiiskan ayaa lagu qiyaasay inuu ku kacayo 10 bilyan oo dollar kaasi oo dhinaca kaleetana ama ka ku noqday guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. haddaba warbixin ay qortay Wall Street Journal ayaa waxa ay faahfaahinaysaa heshiiska nuclear-ka ee dhexmaray Mareykanka iyo sidoo kale boqortooyada Sacuudiga. haddaba maxaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan heshiiskan waxaa ku jira qodobo ogolaanaya in shirkadaha Mareykanka ee warshada uranium-ta lagu hodmiyo ay ka dhisaan gudaha Sacuudiga haddii daraasad wadajir ah oo ay sameeyaan Washington iyo Riyadh ay muujiso in taasi loo baahan yahay. tanina waa markii ugu horeysay ee Mareykanku heshiis nuucaani ah uu ogolaado wadan ku yaalo Bariga Dhexe. maxay tahay doorka shirkadaha Mareykanka? heshiiskan waxaa lagu qaabeeyay in shirkadaha Mareykanku ay hogaamiyaan dhismaha kaabayaasha nuclear-ka ee Sacuudiga si meesha looga saaro tartanka ay ku jireen dalalka Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha. kormeer xadidan iyo walaac ammaan kaasi oo ku aadan qorshaha Sacuudiga loogu ogolaado bam nuclear. sida ay warbixintu ay qorayso hoggaanka Sacuudigu waxa uu ogolaaday kormeer caalami ah oo xadidan oo lagu sameeyo goobaha nuclear-ka si looga fogaado in barnaamijka nuclear-ka ee Sacuudiga loo adeegsado si qaldan. si kastaba ha ahaatee heshiiskan kuma jiro shuruudo adag kaasi oo kormeerayaasha caalamiga ah u ogolaanayo baaritaano ballaaran oo ay kaga hortagayaan hubka nuclear-ka ee Sacuudiga loo ogolaaday sameeyashadiisa. dhinaca kale waxaa heshiiska ku jira qodobo muhiim ah oo ku saabsan kala goynta heshiiska nuclear-ka ee loo ogolaaday Sacuudiga iyo sidoo kale xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga. maamulkii Joe Biden ee Mareykanka hore waxa uu ugu xiray Sacuudiga inay Israa'iil la yeelato xiriir rasmi ah si loogu ogolaado sameysashada barnaamijkeeda nuclear-ka. laakiin Trump arinta waa uu kala saaray iyada oo heshiiska nuclear-ka uu ansixiyay Sacuudiga si ka madax bannaan arinta Israa'iil. haddaba maxaa talaabadan xigi kara? heshiiskan waxaa loo gudbin doonaa Koongareeska Mareykanka maalmaha soo socdo si ay dib u eegis ugu sameeyaan. waxaana la filayaa in uu la kulmo caqabado ay ka mid yihiin diidmo xooggan oo uga timaada sharci dejiyaasha Mareykanka maadaama ay ka walwalsan yihiin in talaabadani ay tartan hubka nuclear-ka ay ka bilaabi karto gobolka